maamule bilyaneer ah ayaa ahaa mid bakhaylnimadiisu aysan xad lahayn. Xitaa gasac faaruq ah oo dhulka yaal wuu soo qaadi jiray si uu lacag uga sameeyo ayuu u iibin jiray. Waalidkiis way u adkaysan waayeen, sidaa darteed aniga ayay ii yimaadeen anigoo ah gabadha adduunka ugu lacag bixinta badan. Haddii aan ku qasbo inuu bixiyo 50,000 oo dollar hal bil gudaheed, waxay bixinayaan deymaha dukaamaysiga iga saaran. Isla markiiba waan aqbalay si aan lacag uga qaato. Waxaan iska dhigay islaan da' ah. Waxaan si ula kac ah ugu hordhacay gaarigiisa. Markii uu gaariga ka soo degay, waan soo booday oo lugtiisa qabtay, waxaana ka dalbaday 100,000 oo dollar oo magdhow ah. Markii hore waxaan u maleeyay in qorshahaygu uu ahaa mid aan cilad lahayn. Laakiin si lama filaan ah, markii uu ogaaday in aysan jirin kaamirooyin agagaarka, isna dhulka ayuu isku tuuray si la mid ah sidii aan anigu yeelay, wuxuuna bilaabay inuu ku qayliyo, islaantan ayaa i dhacaysa. Sidoo kale wuxuu diiday inuu bixiyo wax magdhow ah. Dadkii meesha marayay ayaa aniga i canaantay, waxayna xitaa isku dayeen inay booliiska wacaan. Anigoo cidla ah, waxaan ku qasbanaaday inaan 500 oo dollar siiyo. Qorshahaygu wuxuu ku fashilmay inaan lacag ka qaato isaga. Waxaa intaas ii dheerayd inaan anigu lacag khasaaray. Xilligaas saaxiibadayda ugu dhow ayaa fikrad i siisay. Haddii aan ka dhigi karo inuu jacayl ii qaado, sida lacagtiisa loo bixinayo aniga ayay igu xirnaan doontaa gebi ahaanba. Marka anigoo taageero ka helaya waalidkiis, waxaan noqday deriskiisa cusub. Waxaan iska dhigay inaan ka codsanayo inuu kombuyuutarkayga ii hagaajiyo, laakiin gebi ahaanba wuu iska indha tiray. Ugu dambayntii waxay igu qasabtay inaan bixiyo 300 oo dollar intaanu ogolaan inuu ii caawiyo. Si taxadar leh ayaan isu qurxiyey anigoo rajaynaya inaan soo jiito dareenkiisa. Sidaan filayay, mar kale ayaan fashilmay. Sidaa darteed waxay ahayd inaan isku dayo hab kale. Waxaan albaabkayga ag dhigay dhalooyin iyo kartoomo badan si aan isaga u soo jiito. Isla markiiba wuu soo muuqday. Isagoo faraxsan wuxuu i weydiiyey inaan ka iibinayo alaabtan dib loo warshadayn karo. Intaanan ogolaan wuxuu soo saaray miisaan elektaroonig ah oo la qaadan karo, wuxuuna bilaabay inuu miisaamo. Ugu dambayntii wuxuu bixiyey keliya 3 dollar si uu u qaato dhammaan alaabta. Si kastaba ha ahaatee, ugu dambayntii waxaan helay macluumaadkiisa xiriirka. Maalin maalmaha ka mid ah, quraac ayaan si gaar ah ugu sameeyey oo aan u geeyey. Markii uu cuntadii dhammeeyey ayaan isku dayay inaan saxankii ka qaado. Si ula kac ah ayaan u sii daayay, saxankii dhulka ayuu ku dhacay. Waxaan ku idhi waxay ahayd qadiimi oo qiimaheedu yahay 80,000 oo dollar, waxaanan ka codsaday inuu i siiyo magdhow. Waxaan u maleeyay in markan aan ugu dambayn ku qasbi doono inuu lacag bixiyo. Laakiin si lama filaan ah, wuxuu soo tuuray baranbaro. Aad ayaan uga baqay oo isla markiiba waan ku istaagay. Si caro leh ayuu u yidhi, waa xayawaankaygii, wuxuuna iga dalbaday inaan magdhow siiyo. Isla markaas waxaan fahmay in ninkan lacag laga qaado ay ka adag tahay in maadees la helo. Malaha idinku waxaad haysaan fikrado fiican oo lagu heli karo maamulahan inuu lacag bixiyo.